waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd iskalow secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan maleynaya maalintii aanu maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxaan ma dawladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asahatee inba meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dawladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay dadka labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baaray dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baaray bixi hadalkii waxa weeye guntiisi bisha kowdeeda July kowdeeda inaynu dawlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiisi noqday dawladnimo loo qayliyaa dawladweynaha doonayna la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylina helay dawladnimadiina asaatee ka adag wuxuu yaariga ka sii adag maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynkaas way naga tagayeen July maalinta July baynu walaalin Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna markaana ay ku hadhay baa hawl haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leeynaga bax ajnabi inagii maanta leeyno kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay